بسم الله الرحمن الرحيم قدونك بارلمانك قدوميها قولها وكيلة إيو لودي سكوحيجين حبناها قولها وكيلة مرشحين تا مدحتوية دا مرتشرفتك دونا هلك فرديد الدمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa runtii sharaf weyn ii ah inaan maanta hortiina marlabaad soo istaago anigoo ah musharax u tartamaya xafiiska madaxtooyada Puntland maanta oo kale 2019 waxaan hortiina imid baarlamaankii shanaad anigoo oo weydiisanaya una soo bandhigaya barnaamijkaygii aan ku shaqaynayay ee halkudhigiisu ahaa tayeyn iyo tiigs. waxaa ilaahay mahadiisa xubnaha baarlamaanka ee maanta jooga inay yihiin xubno baarlamaan oo dalka joogay oo la socday xaaladda dalka iyo wixii aan soo bandhigay wixii aan ka qabtay. waxaa gundhigu ahaa 8 yool iyo 66 ballanqaad oo ku salaysnaa aragtidii siyaasadeed ee markaa jirtay oo aan u bedelnay qorshe howleed xukuumaddii aan hogaaminayay 5 sano la soo dhaafay. waxaa ilaahay mahadiisa qodobadii u waaweynaa ee aan markaas u soo bandhignay dalka inay noqdeen kuwo miro dhalay. uma baahni inaan dib ugu noqdo wixii ka qabsoomay iyo waxaan ka qabsoomin. xubnaha baarlamaanka hadda jooga iyo dhammaan bulshada reer Puntland waxay u joogtay oo ku tahay xaaladda aan isbedelkaas yimid. waxaa saldhig u ahaa oo u weynaa isbedel siyaasadeed ee muuqdo oo saldhigiisu ahaa inay dalku ka hana qaado nidaamka doorashada qof iyo cod oo maanta ilaahay mahadiis 33 degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland ay leeyihiin golayaal degaan oo dadkooda u soo doortay oo ah arrin muddo weyn iyo muddo dheer lagu taamayay. waxaan rabaa waxyaabihii soo qabsoomay idinka ogsoon tihiin 2 qodob inaan uga dul istaago. qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa isbedelka dhinaca amniga iyo tayeynta lagu sameeyay ciidamadii dawladda. waxaad ka warqabtaan muddadaas in dawladdii aan hogaaminayay 5 sano la soo dhaafay ee isbedel weyn ku samaysay dhinaca amniga la dagaalanka argixisada khaasatan magaalooyinkii waaweynaa ee dhibaatada badan naga haysatay oo magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Boosaaso ugu muhiimsanayd iyo dib u xareyntii magaalada gobolka Sool iyo dowrkii ay ku lahayd dawladda Puntland dawlad ahaan iyo shacab ahaanba ay ku hogaamisay. waxaad ogtihiin ciidamada Puntland tababarkii iyo horumarkii lagu sameeyay waxaa tusaale kaliya ku fulan in mushaharooyinkoodii 200% kor loo qaaday. qodobka ugu muhiimsan waa qodobka waxbarashada oo ogtihiin dawladda Puntland tan iyo markii la aasaasay ilaa iyo 2019 waxaa u hirgelay oo hirgelisay 450 xarumood oo dawladeed wax ku dhow. muddada 5 sano ah waxay maraysaa 900 siyaado. waxaan kor u qaadnay 100% dhismaha xarumaha dawladdu ay dhistay iyadoo la kaashanaysa hay'adaha caalamiga ah ee Puntland waxay xoogga saartay inay ka xaqiijiso hadafkii iyo yoolashii ay u aasaasneed ay u timid. labadaas qodob waa qodobo aasaasi ah oo qof walba dheehan karo aanan ahayn been iyo hadal tiro. waxaad ogtihiin dhinaca caafimaadka waxaa dawladdani ku guulaysatay markii ugu horeysay in deegaanada fogfog la gaarsiiyo xarumo caafimaad oo awood u leh inay sameeyaan qalliinka umulaha iyo dhaawacyada soo gaara dadka sida magaalada Caluula, Xaafuun, Bayla iyo meelo fara badan oo ka baxsan jidka. guulahaas waaweyn waxay saldhig u ahaayeen isbedelka dawladdan ay la timid. runtii muddadaas dawladdan ay jirtay waxaa soo wajahay caqabado fara badan oo ka yimid dabeecadaha iyo duruufaha dalka ka jiray. waxay dawladdan soo maaraysay caabuqii COVID-19 waxa ay ku guulaysatay waxbarashadii oo istaagtay inay ardadii ay helaan
waxbarasho maqal iyo muuqaal ah oo dhammaan aysan hoos u dhicin waxay ku guulaysatay Puntland inay UNICEF u aqoonsatay Afrika meesha kaliya ay ku guulaysatay inay ardadii ay ka joogsan waxbarashadii waana taariikh ku suntan bogagga taariikhda ay jiraan runtii taariikhda lagama been sheego maxaa yeelay dadkii goobjoog ahaa baa jooga wixii qabsoomay iyo waxa aan qabsoomin dadku og yihiin caqabadihii adkaa ee dalka soo wajahayna qof walba wuxuu ahaa goobjoog guulahaas faraha badan ee Puntland gaartay waxa hor socday caqabado aad u waaweyn oo ay saameynteedu ahayd isbeddelka dalka ku dhacaya iyo dhismaha dawladnimo waxaad ogtihiin marxaladaha adag baan maraynaa dalkeennu oo ay sabab u tahay dhismaha dawladnimada oo ah meelaha u adag ee 30 sano ee Soomaaliya ay jirtay culayska ka jiray runtii Puntland waxay si rasmi ah saameyn ugu yeelatay oo dib u soo celisay maqaamka dawladda Puntland ay ku leedahay hogaaminta Soomaaliya iyo ka gaaridda qaraaraadka masiiriga ee dalka waxay suurtaag ku sabaysay in dalka laga majara habaabiyo nidaamkiisa dawliga ah ee ku dhisnaa federaalka waxa ay mar walba cod dheerba u kortay sidii dalkan uu noqon lahaa dal ku socda sharciga iyo nidaamka iyo kala dambeynta waxa runtii qiraya duruufaha dalkeenu ku marayo xaalado adag iyadoo ay jirtaan inay Puntland ay mar walba doorka ay leedahay qaadanayso waxa nasiib darro ah isbedelada kala duwanaa ee ka imaanaya dawladda federaalka inay mararka qaarkood ku noqonayso caqabad nidaamka dawliga ah ee federalismka ah kaasoo Puntland ay tahay mid aysan gorgortan ka geli karin oo ku dhisan dastuurkeeda iyo rabidda dadkeeda waxaan si qoto dheer u garab istaagnay cid kasta oo mudan inay hesho xuquuqdeeda aasaasiga ah iyo keeda dastuuriga ah runtii isbedelada ku imaanaya dalka waxay ahaayeen isbedelo taariikhi ah oo u baahan in si dhow loola socdo waxaad ogtihiin dowrka ay dawladda Puntland ka qaadatay SSC iyo sidii u noqon lahayd inay dadkaasi aayahooda ka tashadaan iyadoo muddo 15 sano ah ama ka badan ay ahayd maamul aysan shacabkeedu raalli ka ahayn oo caburis ku hayay waxay u hurtay naf waxay u hurtay maal waxay u hurtay aragti siyaasadeed waxay ku mutaysatay colaad aan ahayn mid aan gar lahayn waxaa la isku dayay dawladda Puntland in looga hor yimaado mawaaqiftaas aasaasiga ah ay ku difaacaysay dawladnimada Puntland iyo xuquuqda aasaasiga SSC waxaa halkaa ka dhashay barnaamijka siyaasadeed ee hadda ay soo bandhigay ee ah dimuqraadiyad iyo difaac waxaan marna ka tanaasuli weynay inaan horumarino ballanqaadkii aan dadka u soo dhignay oo ah dimuqraadiyadda annagoo ku jirna difaac ka socday iyo xoreyn ka socotay SSC ayaa haddana waxaan dhinac wadnay inaan dalka gaarsiino dimuqraadiyaddii oo doorashooyin ka qabanno taasoo ah wax marqaantimo doonta oo halka jiro waxaan runtii isku daynay inaan wax weyn ka tarno dhinaca kaabayaasha oo ah halbowlo u ah horumarka dhaqaalaha oo saldhig u noqon doona dawladnimo waarta waxaa runtii si muuqata oo hadda aan marqaantimo doonta ah wax uga qabanay wadada dheer isku xirta Boosaaso iyo Gaalkacyo oo caqabado badan ay soo hareerayeen muddooyinkii u dambeeyay oo ahayd inay burbur uu ku dhacayay gaadiidka iyo duruufo adag inay soo wajahayeen waxaa runtii isbedeladaas muuqda ee dalka ka dhacay ay wax ka bedeleen nolosha iyo habnololeedka bulshada waxaa camirmay magaalooyinkii waxaa isbedelay bulshadii waxaa soo kordhay hanka dawladnimo ee dalkan ay leeyihiin waxaa runtii ku faraxsannahay in maanta Puntland ay leedahay 2 dekedood oo aysan horay u lahayd hal deked kaliya dekedii Boosaasana ballaarin lagu wado dekedii Garacadna ay maanta qaybteedii koreed ay gabagaba tahay waxaa runtii dawladdeena saldhig u ahayd inay tayayso hay'adaha dawladda hadday tahay dhinaca amniga hadday tahay dhinaca kaabayaasha hadday tahay dhinaca shaqaalaha waxay dawladdan ku guuleysatay markii ugu horeysay inay shaqaalaha Puntland oo tan intii la aasaasay aan isbedel lagu sameyn
ay u samaysay heerarka shaqaalaha ay kor u qaaday mushaharooyinkeedii wax ku dhow boqolkiiba 200 waxay joogstaysay mushaharooyinkii shaqaalaha waxay si joogta u bixisaa xuquuqaha inta laga reebo bilihii u dambeeyay oo culayska amni iyo duruufaha SSC ay soo wajaheen maantadaas aan joogno waxaa baxaya xuquuqda ciidamada buuraha saaran iyo kuwa difaaca SSC ku jira raashinadoodii iyo difaacoodii aysan horey uga dhicin Puntland arrimahaas runtii ma aha inaan anigu sheego waa waxaad xogaal u tihiin dalkan aad goobjoog u ahaydeen waxaa runtii markaanti madoonta ah isbeddelka dalka ka socda iyo dhismaha federaaleyntu inay soo wajaheen caqabado adag oo u baahan in si dhow loola socdo waxaan marar badan ka digaynay in dalkani uu ku dhaco gacan saldhiggeeda uu noqon doono in ay yeelato dawlad dhexe oo awood badan oo ilowda dawladaha stateka ah oo gobolkani si gaar ah uu ugu suntan yahay inuu ahaan jiray gobol la magac baxay gaariwaa markii nidaamka dawladeed ee dawladda dhexe ay jiri jirtay waxaan gorgortan ka geli weynay in nidaamka federaaleysta hoos loo dhigo waxaan iska diidnay in dhaqaalaha adduunka ugu talagalay Soomaaliya oo qaybta Puntland ay leedahay noo laga bedesho in dastuurka lagu maran habaabiyo waa sax mashaariic Puntland ay leedahay ayaa dawladda dhexe ku xayiran sababta ay ugu xayiran tahay waxa weeye bilihii ugu dambeeyay la arkay inay dawladdu muddaxileedkeedu gabaabsi yahay ayaa waxa la isku daray in laga faa'iideysto inay Puntland iyadoo mandatekeedu sii dhamaanayo lagu cadaadiyo inay ku bedelato in nidaamka dastuurka la bedelo oo aad arkaysaan qaylada ka jirta waxaan diidnay maadaama xilligu uu gabagaba yahay inaan taataabanno arrimaha noocaas ah annagoo dhexda u dhuuqsannay inaan waxaan haysanay isku beeqaaminno dadka Puntland aan u deyno waqtigeeda waxaan runtii inii soo bandhigayaa musharaxnimadayda waxaan inaga codsanayaa inaad codkiina i siisaan waxaan rabaa inaan meesha ka sii wado dadaalkii aad horey igu taqaaneen waxaan rabaa waxyaabihii dhinnaa inaan dhammaystiro oo ugu muhiimsan tahay dimuqraadiyadda inaan SSC ay yeelato maamul ku qanacsan tahay oo hufan oo aan u qaybinno habka ay uga baxayso nidaamkaas wax kasta oo bulshada reer Puntland taa diyaar u nahay markhaanti madoonto weeye waxaan inii ballan qaadayaa shaqo hufan sida ay ugu barateen